والبدأ أركتيس استيقظوا نقدان أنا ديس لأن يكسر سمية لكن وحرد يشيلني وبدلين أمشيلان أنا نقول هيدا هاي وحاس مشيلان والواحد يقول تشمن عرارتي برنامج مقع صوران حلو بحي أما هو راح مقع يرانتي دي بالي يقول بحي مركا مقع صوران تروح هاي وحوت هاي قف وأمر بنان أما مقرن يسا يدو بركي أن يراد وبهوي بحس هي الأسباب يقول بحس مكان كانوا مقرن لكن يرانهم بالي يقول بحي مقع صوران وحنفله إنه ناني سعيد مقع يقول إبراهيم إسماعيل سبيل هذه جاي maxaad ku dooratay inaad jilaan noqoto anigu doorashadii ma angelinay waa tan hore kugu sheego waxaan kugu yiri bulshada dhexdeeda bulshada aan ka tirsanahay markaan aragnay waxyaabo badan oo goldaloolooyin oo ka maqan oo dhinacii fanka ah ama aragtiyo badan oo laga qaadan jiray fanka oo meesha ka maqan un baan isiri bal kaalintii ay lahaayeen buuxisaan ama samayn kartaan wax ku soo dhowdhow waayo fankii iminka Soomaalidu uu kala yaacayo midba meel buu ka dhacay ma jiro masraxiyado lagu soo bandhigo suugaantii Soomaalida wacyiga jiray Soomaalidu waxay ahaan jirtay suugaan baa lagu soo bandhigi jiray ruwaadaha lagu soo bandhigi jiray dadka halkaas tusaale ka qaadan jiray marka sidii muddo dooraba imika burbur baa ka jira xagii fanka laba meel bay iska joogtaa midba meel buu iska taagan yahay masraxiyada ma jiraan sida awgeed anagu waxaanu samaynay aan isku dadaalay inaan samayno bal inaan samayno kaalintii fanka oo ka maqan bulshada dhexdeeda inaan wax ka in kamid ah aan qaban karo maan isku taxallujino sida awgeed baan meesheen jila aan ugu doortay ma jirto aan sidii markii hore jila doonadii ma ahayne waciga baan la galay agoon noocan aad u xujishaa Soomaalidana aad bay ugu yartay ama dunida waxa lagu arkaa waayo imika dunida waxa jira Master Bean iyo nin kale caana koormay ahayd markii ugu horeysay aad wax xujishaa goortii ugu horeeyay wax jila waxay ahayd adigu ilaa 97 baan fanka galay koox durdur loo oran jiray baan galay oo ku jiri jiray kooxdaas waxay sameyn jirtay kooxdii muusig bay ahayd laakiin waxay lahayd qayb jila iyo heesaaya oo marka loo baahdo ruwaado inay qabtaan dabeedna ruwaadihii ugu horeeyay anigu aan wax ka dhigay waxay ahayd ruwaad loo oran jiray isaseega jacaylka waxa ku jirtay deeq ilaahay iyo jacayl daacada waxa ku jiray iyo walqalay waqtiga ruwaad loo oran jiray iyaduna marka kuwa dee jila adigu caynkaas baan kuwaas ma ka soo qaatay laakiin intii dambe baan markii fankii burburay ma hadana anigu halkii uu ka sii waday oo aan joojinin ruwaadaha shay maxaad ku matalaysaa ruwaada qaar waxaan ku metelayay qaar waxaan ku metelayay oday qaar waxaan ku metelayay inan qaar waxaan ku metelayay islaam baan jirtay aan ku metelay xitaa ruwaayad loo jiray isaseeka jacaylka oo nimca yaasiin aan hooyo ahaa oo bilmetel barka dumarku way ku yaray fanka jiray dumarka islaamaha oo ama aan buuxin jirin makaalintoodii xataa bayga hore marka waxa jiray ragga jiray dumarka inkastoo ay wax dambiyo oo aan loo baahan markii dambe dadku aad wax loo sii fahmay la gartay hadana waxa jiray kaalinta dumarku may buuxin jirin jilaalnimada dumarka deeq gabadhu bay iska jiray sida awgeed waxa buuxin jiray oo jiray kaalmaha ragga markay arki waayeen masraxiyadii wax ka buuxiya markii dambe laakiin waxa la ogaaday inay dambi tahay oo dhowr dumar hadaad gashato adigoo nina ay tahay dambi laakiin noocyaas ma ku soo jiray ruwaadaha imisa ruwaayad ayaad sheeguna soo wallahi way badan yihiin adigu 20 meelahaas ku dhowleeyeen oo adigu ruwaada waaweyn ma aha waa sheekooyin gaaban oo tusaale ah oo ruwaad lama oran karo ruwaad waa tii heesta lahayd gabayga lahayd geeraalka lahayd laakiin anagu kuwan aan sameeyna waa sheekooyin gaaban oo adigu ama 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo waxa socda oo aan isku soo koobno sheeko walba marka waciga aanu kaga hadlayno marka adigu ilaa 20 meelahaas ay gaarayaan ilaa 12 meelaha intaan qaban ruwaadaha sameeyay maxay badiyeen ama aad ka qayb qaadatay ruwaadahan sameeyay waxay badiyeen waa wacyigelin waa wax bulshada dhexdeeda yaalo wax kale ma aha wax kale kama sheekeeyaan waxay muujinayaan waxaasina way wanaagsan yihiin bay muujin qofkaas wuxuu jilayaan way xun qofkaas wuxuu jilayaan way wanaagsan yihiin waxaana aan ugu soo gabagabeynaa waxa wanaagsan waxan in sidaa laga yeelo saas ma aan ku muujin ruwaadaha saas way ku wada saabsan fadi ruwaayada ayaad soo qabanaysaa dadweynaha caawina ka daawanaya TV kale والله تانو سoo qabto garan maayo waxa weey qofku marka waxa uu sameeyo bulshada kale iyaga kala wanaagsan laakiin anagu deesay kala horeeyaan waxa loogu horeysay riwaadan ku dhaxlaynay nabad guurka oo dhuxusha iyo waxa sida loo gubo
sida qofka dhuxusha shita aanu dalka ugu danaynayn sida aanu naftiisa waxba uga qaadin wax faa'iido aanu ka qaadin dhibaato iyo baaba uu kala sii kulmo riwaayadda ugu horeysay aanu sameeyna taasay ahayd waxa loogu xigtay mid kale oo yar oo iyadoo ka hadlaysa sida maanta dadka aan loo kala saarinba dadka lama kala saaro nin baa weydiiyay halka inaad meel hama lagu iibiyay tus dadna markaa waxaan ku yiri waan tusay markaan tusay waxa uu yiri waayahay markaasaan ku wax loo dhiibo markaas waxa ma hayo dadna macni wax xalaale ninkii man ku yiraahdaa miyaad naga qaadaysaa wax yaga nas dabeetana ninkii wax xalaale wixii siina waa garan way arrintii waxay la gaadhay station waxay la gaadhay maxkamad waxay la gaadhay ilaa odayaal markii intaasoo arrimood arrintii ku simayd war meesha haama lagu iibiyay tus waxay gaadhay maxkamad sida halkaas waxay muujinaysaa dadkii inaan ciidamada kala saarin oo qofkiiba shaqaaba laga dhigtay dad isqabtaan ilaa waa la kala saari jiray ninka inta yiri kaasure inta yiri qofka ugu horeeya kala saari jiray ninka dadkii ciidamada kala saarto dunida aan joogno waayo dadkii shaqaaba qaar ka sii dhigtaa wixii dhacay shaqaaba ka sii dhigtaan taasoo loogu xigtay waxa loogu xigtay midaan xisbiyada waxa kaga hadlaynay waxa ku adigu way badan yihiin anigu halkan kula soo koobi karo midaan anigu ilaa taas la xiisaynay ana garmay dadweynuhu baa ilaa taas wanaagsan riwaayadda ugu horeysa su'aal qaad adoo intalasaan adiga jawaan ee koronaya kale tusmeesha ama lagu iibiyo ee lacagtii wuxuu shaqsiyaad ka qaadayso hadhow isaguna dhulka ka qaadayo riwaayaddaas waxay ku saabsanayd waxa magaceeda la yiraahdaa adigu waxay ku saabsan tahay sida aan qofka bili aadanka hadii dadku wax isu qabto waa la kala saari jiray waxay ku saabsan tahay labada qof cid kala jahaysa la waayay waxa isku hayeen wax yar bay ahayd sheekada qisadana way daawateen oo waadahan wadu daawateen oo qaabka ay ka sheekeynayso waa aragteen marka ujeedada aan ku lahayn waxay ahayd dadkii wixii kala saari lahaa ayaa imika shaqaba ka dhigta badi oo haday laba qof isqabtaan halkii la oran lahaa warada gardana ama adaa gar leh lama yiraahdeen labadii qof mid bay dhinac baa laga soo dhisaado markaas ay odayaal soo kaxayso adna odayaal reerkiina soo kaxayso odayaasina isdifaac bay galaan waliba ninkoodii bay difaacaan dabeedna arrinimo ma dhamaatay samadu bay ku sii qalqantaa marka barnaamijka waxaan uga jeednay dadka in la kala saaro oo wixii u baahnaa in la kala saaro ay maanta meeshii ka maqan tahay ujeedadan kale intaas bay ahayd yasmir riwaayada أنا سميه شيء كوين كأوحى أنا سميه بدي ده تطلع باي كلا غيب قاطو إلى ترى وحكوا ده ممكن ترى أن كان أكثر كأي عيسى عبد إسماعيل توان وانين لليراء وانين آد مستحفرا وانين آد تشلاء وانين سكون مركز سكينة فكرة ده أو ده وحكسو كوريا وانين عن ده صاحبنا هاي من كأنا كلام مارمين وأنا ملكو كلام مقنانين ويدشوفون مركزتا روح أنتينا وانين آد إنك فنك أنت وياهي سيدا وياهي قف أكتفا أو وح الله عليه يوحي لودي بإسلام مركب سيدي ومثلي كرا أما يسوق الصوت سمين كرا نكاس الله ودين نقول كذا وحكي دين نقول كذا رك فربضان أو دين قال قيقاته في الماذا أو دين الله بدي يقول ما هي رك يدمر بدي ويجيهين وقوة كلا ياربان أوران كرا دت كقار بعد أركز الرواده قارئ مثليان إلى كنتم قف marka halkii aan ugu horeysay aan kula fankii meeshii buuxinaa baan damaanay markii masriixiyad la waayay ama meel wax lagu soo bandhiga la waayay anigu waxaan sameeyay inaan ka dhigo dadkii qaar riwaayadaha horu jiri jiray oo kale waayo qofka hadalkiisa u dhaabaan ilaahdaa sidan u metel baan ilaahdaa sidan isu taag baan ilaahdaa actionka aad ka bixinayso wajiga sida aan noqdaa dabay dadkii qofkii kasto oo aan iminka u yeeray wuxuu noqdaa actor weligii wax jiri jiray oo kale laakiin ciise cabdi ismaaciil waa ninaan moodo inuu ku dhashay fanka waa ninaan moodo maskaxdiisu inay فرنتهاي وانين آد هاتن أبوحين كرا كلمه لك ده هرتا قف كويحي أدغير ويا ركسنتهاي تابر وينقون يسا لكن يجر روحان تدك وإحنا لك لا آد بيجونوا ده لأنه قف كده تابر كإن تورو قادم تري ودك سبوا قلت تري وحواد ودليل لكن إمك ورصيد هذا مركات رصيد بورنا يابا ورصيد هذا المركات رصيد بوحد إمك واحد ركيسا رواية بوحنا نقول ترى له رواية بوحنا ترى إنكم تلاقي الكوليستي أما مثل خمر عبة ninkaas weligii riwaayad ma soo jilin laakiin sidii aan nidide ayuu yiri wuxuu noqday actor aana oo la jecel yahay xitaa hadaladiisa markaan warhalka sidaa u dheh sidaana u soco sidaana samee waxaad moodaa weligii inuu jiro riwaayadaha marka dadka meesha aan wuxuu dhigna wadaad mooday hore waxaan jiray fanka haddana ma ahay wadad iminka biyow ah marka dibu wanaagsan dadku anu macalinku deewaanka wax soo dhiga ee dugsi soo dhiga laakiin anagu war sidaan isu taagsadaan soo hadal marna sheekadana qisadeedu man soo sameeya leedihiin shisha riwaayadaha adiga jawaan aad ka tihiin ad koraya kooxaasi maxaad magac ugu bixin weydeen kooxda waa magac way leedahay
kooxda waxa la yiraahdaa meeshan imka degannahay ee gobolka Togdheer kooxdana magaceeda waxa la yiraahdaa Togdheer baan waxa weeye marka magacaasay leedahay heesaabay leedahay jilaabay leedahay muusikistay leedahay laakiin anagu sheekooyinka iyaga gaarka ah muusik kuma daro heesana kuma daro waxaan uga jeednaa wacyigelin annagana deynaan dambi nagu noqono wax dambi nagu keenaanay noqonay oo xitaa wadaadada deewaan la kaashanay waxaan yiraahdaan sida wax u sheegno oo nawar waxaasoo way khaldan yihiin dambi ma noqonayaan ma way yiraahdeen culimada xitaa war sidan waa loo sheegi karaa dadka waa loogu sheegi karaa marka anagu sida laakiin waxa jira koox muusikistay leedahay heesaabay leedahay jilaabay leedahay laakiin intii sheekooyinka jilaysay baan ruwaadaha ku soo bandhignaa intii aad ku jirtay fanka caqabadii weynaa ka hor yimid mid iyo laba adina soo koobay kulli mushkilada badan baa jira oo meeshii markii aan cid ku taageertay iyo dhaqaale aan lahayn mushahar iyo dawlad aanad ka qaadanaynin qofkii bili aadanka markuu ku yiraahdo waxa kan qabo dee waxaad noqonaysaa inaad tiraahdo war waan lacag deysi haay maxaa wax ku qabtaa adna aad tiraahdo war anagu bulshadaan wacyi gelinay maxaad waxaan inka dadku sina garanayn kulli mushkiladaas way taagan tahay oo mar anagu ma nihin dad la maalgeliyo waxa jirtay meesha saxadan ka bilownay aniga ninka imika aan ku sheegay jilaaga aktarka Ciise Cabdi Ismaaciil Jawaan waxaanu ka bilownay cid la ciirsila sida awgeed qof kastaan u yeedhana mushkilada naga kortimaada badan inta waxay noqotay inay yiraahdaan taan ruwaada jileelna si lacag anaguna ruwaadi lacagna kuma qaadano ciidana laguma maalgeliso dawladii mushahar kama qaadano inta kulli caqabadaha ugu badan naga hor yimaada waxay noqdaan in aan wixii aan qabanayay dadka qaar oo arkaan lacag ku qaadanayno aan lacag keena haddana yeelkeeda in badan baanu helaa oo si wax noola fahanto wax nala jisha marna ma ku qortaysan tahay inaad ka baxdo fanka haayo dee waxaan wax leen inkastoo fankan iminka aan ku jiray aan wadna aanu ahayn kii dhibaatada iyo dambiga lahaa ee mala awaalka ah ee been abuurka aanu ahayn ee mid ka hadlaya uu yahay war wax xun iyo waxsan sidii loo kala sheegi lahaa haddana dee way qorshaysan tahay inaan haddii ilaahay ka dhigo aan ahayn dee inaan ka sii dhigto profession iyo shaqo aan ka sii dhigtay wax sheegayga sudeewaano xagga diinta islaamka inaan xataa wax ka sheego wanaagga iyo xumaanta iyo dadka waxaan inaan ka hadlo loo yahay oo dee qofka afiya aakhiradiisa wadeen ka shaqeeyo way fiican tahay laakiin way jiraysaa daa kullaha maraan isleeyahay markii dawlad bulshada lixdeeda waxaan aad u sheegayso wax bedelo oo dee ka sheekeeyo iyaguna oo ama dee fankiyo dib u soo noqda ama dad ku soo dhiirada fankii sida tan wax loo dhigi karo ku soo dhiirada la helo dee yumaan isleeyahay kaalinta markaas un dee la helo dee kaalintii wax buuxiya insha Allah waan isleeyahay hadii Ilaahay ka dhigo dhawaan waxa soo saarteen ruwaad ka hadlaysa dhaqanka Soomaalidu si uga tagtay qaadanaysa dhaqamada kale ruwaadaasi adoona soo koobaya dee waa daawatay oo waxa ka hadlaysaa dhaqanka Soomaalidu waa dadka dhaqanka aad uga markiiba ka tigid uga dhowbayn leenayo dadka dunida kale dadku dhaqankooda ku faanaano waxay yiraahdaan dhaqankayagii waxayagii way haystaan way ku dhegsan yihiin laakiin Soomaalidu waxay u badan tahay dadka si yar dhaqankoodii uga taga oo u neceb dhaqankoodii dadku waxay hidde iyo dhaqan u leeyihiin way jecel yihiin dunida markaad eegto waanay ku faanaan qofkuna haduu dhaqankiisa ka tago dhaqanka uu buu galay oo aan lahayn marka waxaanu ka hadlaynaa warka aad leedahay un baa ku anfacay ee ka aan lahayn socodkiisa ma yeelanaysid ma meteli karaysid uma socon karaysid kuma dhaqmi karaysid kaaga ha ka tagin un baa lahayn war kaaga wax ku dhaama ma jiraan dadkuna dhaqankooda kama tagay way jecel yihiin laakiin Soomaalida waxay jeceshahay iminka qofku haduu meel kale tago qof qoladaas uu soo ekaysiiyo qoladii uu ekaada marka waxaan leeyahay war hawa kan qoladaas ma tihide kaagi ahaw ujeedadan ka hadlayna taasun bay miyaan oran karin dhaqankan Soomaalida si guuraya waxa uu soo dadkan dibadda ka soo laaban iyo qurbo jooga ilaa imanaya dhaqamada kale taas ay kaga dayanayaan dhalinyarta ku nool wadanka war kuwa saaba ugu dhowdhow anigu waxaaba ku leeyahay markaad iminka sii eegto kuwa dibadda ka soo noqonaya ba ugu dhowdhow saa waxay soo arkeen dhaqanna kale waxay soo arkeen dhibaatooyin kale dee midmidiya dhifku iskaga jiri kala luma laakiin badi kuwa saaba la qaatay kuwa dalka gudihiisa joogay aan ka tagin baaba ugu daran waxa ugu daraniba waa kuwa dalka gudihiisa jooga waayo wuxuu isoo ekaysiinaya waxaanu ahaynba wuxuu hadlaya waxaan hadal aan lahayn markaa socodaan lahayn markaa labisaan lahayn waxaaban anigu ku leeyahay laba marka la eego kuwa dibadda ka soo noqonayaaba dhaqankii ugu dhowdhowa waayo waxaabay dareensan yihiin dhaqankoodu wax jira yahay oo wadankooda ka jira kuwa maba dareensana wax jira maxaan ku falanaa waxaan sheekadan iyo gebigoodu meel kale la haystaanba marka waxaan ku leeyahay war kuwa ka soo noqonaya dibadda wax kala ay soo arkeen koodii waa kartay marka wuxuu yahay kanaan arag ba wax kale
mid kale waan qaltaagaa ugu dhibaato badanba waxaad malaynaysaa dhaqanka Soomaalidu uu soo guuraya inuu ku dambeyn doono wuxuu ku dambaynayaa wuxuu horta heedhe weligii guuri maayo inkastuu guuro dee wax la weerargaleeyay halkii unbaa lagu soo noqonaya weligaaba iska dhig waxaana lahayn oo kaa tahay waa kanu waxa guuraya waxa weeye hadalladii graamarkii Soomaalidu lahayd ee hadalladii hore ee wax lagu kala fahmi jiray wixii la isu dulmari jiray hadalladii yaa guuraya laakiin darxilashadii iyo dhaqankii iyo diinta islaamka bay nahay oo horta marka hore dhaqankii wuxuu la xiriiray dhaqanka islaamku muu la xiriira oo darxilashadeen iyo waxaynu diinta islaamka bay nahay laakiin dhaqankii inoo gaarka ah hidda iyo dhaqanka la oran jiray waxa guuray hadalladiisii dabeedna waxa soo baxay hadallo cusub aan la fahmin qofkii yara marka af Soomaaliga buu ku yiriyahay oo hada waxa ma garanaysaa taa wariyahay ma taqaana galoolka galoolku waan garanayaayo waa wanaadiga kamidka abaan waxaan meeshii wuxuu kugu sheegay waxaan wixii baahayn marka waxa fiican dadka waalidiinta ah ee waaweynay dadka wuxuu sheegaan u baa wanaagsan si ay dhaqanka u guuro meeshii Allah aanaynayo dhaqanka Soomaaliyeed soo guuraya xukuumaddu meelay dhaqanka Soomaalida lagu barto wacyigelin lama qabto marka dhaqanka uu iska tagayaa dhaqamadan kale ayaa ka tan badanaya way ka tan badanayaan xataa dawladda laftigeeda sababay ku leedahay oo meelihii la rabay inay ka bilowdo waxay ahayd dadka wuxuu bar dadka wuxuuda meelihii lagu baraayay ee dhaqankooda ahaa ee diintooda ahaa ee tarbiyadooda ahaa horta abuur dad aan tarbiyadaysnaynba oo dhaqankoodii ka tagay oo dharxeeshadoodii ka tagay ayaa meelo kale iyo wax kale horta waxay ahayd dawladda laftigeeda inay ka bilowdo warba dadkan aad la hadlaysa ee dawladda u tahay maamulka u tahay tarbiyadii iyo nidaamkii oo kaluusatay bal horta sabee meelo tababaro hoose laga soo qaato dhaqankii laga soo qaato ashii lagu soo qaato deel tarbiyad sameeyo laakiin hada waad arkaysaa imika xataa laftigeena waxaad u arkaysaa in la leeyahay wadawladda xitaa maamulkii hada sheegto waxa aanay lahayn meel kasta baa joogtay lagu qabto xitaa shirarka lagu qabsada baanay lahaynba shirarkii lagu hadlayay hodeel baa lagu qabtaa maqlaysa marka dadka hodeel wax loogu qabanaya nin leeyahay ee aan lahayn horta isagu meel ku shiroba waa dhibaato laakiin waxa dadka dawladda laftigeedu waxa ka sii mas'uula laakiin ugu daran waalidkii baa isna la lumay dadka yaryara oo aan si xog sheegayn oo badi aan fahamsanayn isaga laftigiisu marka waalidka waaweyn waxaan ku dee anigu oran lahaa war dadkiina wuxuu sheega dhaqankan ku soo barbaariyo dawladana waxaan leenahay war horta dadkan mas'uulka u tiin tarbiyad male dhaqankoodii lama haystaan war baru abuura meelo dee baan anigu oran lahaa ay wuxuudi ku soo bartaan wadiile waa dan waxaagu waa wax aan ka maarmaynin horta dad aan tarbiyaysan iskuul lahayn oo meel lahayn oo tarbiyad lahayn oo meel lagu barto waxba la soo barin ayuba taageli meysidi taa waxaan leenahay bal u abuura meelii wax lagu bari lahaa ayna nimaadno riwaayadda Quraanka riwaayadaasi adeeno soo koobaya aduu raadi ribaahdo ku saabsan xaaraanta sida dadka dad baa jira bisha 12 ka bilood bay iska fakooy 12 bilood kale iska basho bisha rabaanta shaqaysta hadda tira waxaad ka shaqaynaysaa waxaan wuxuu ku leeyahay anu bishaasan shaqaystaaba wuxuu ka shaqaynayna waa xaaraan dad wax ka cunayaan way jiraan laftigooda xaaraantii markii la arkay xaaraan shidan dad baabadee soontiis ka jiri waxaad arkaysaa aanu kaga hadalay qaar baa jira jimca soon la yiraahdo oo jimcaha uu sooma marka waxa jira qaar yiraahda wallahi suxuurti way ka tagtado adigu waxyaabaha yar yar ee aan ahayn wax soontaadii joojin karaya ee aad cudurdaarka ka dhiganayso baan lahayn ha ka dhiganina cudurdaar barnaamijkuna uu lagu yaraa wuu soo koobnaa laakiin wuxuu ku saabsanaa sida adigu waad wax matalaysay min xaraan karinaysan filaya waxaan ku matalay xaraan min aan suumin laakiin marka dambe warooyinka arkay soomay markii dambe oo isagu laftigiisu dadkii ka qayb qaatay inuu yahay warda sooma oo baan ayaan muujiyay riwaayad matasho riwaayadii amaad ka qayb gashay riwaayada ku saamay badneed ilaahay taasaan ilaawi dadweynaha mid ilaawi anigu ma ilaawi ku day wax dadweynaha markaan waan wax sameeyay wax gacanteedu way ka baxeen maskaxdeedu way ka baxeen marka dadweynaha qiimeynta leh anigu ma lihin aan soo qaadano mid ka mid ah riwaayadaha oo riwaayadaha lagu jecel yahay waa riwaayada jinka riwaayadaasi waxay ku fadhidaa waaqiciga jira aniga sameeyay laakiin wad magaceeda waxa la yahay ninka aaminay faalku alle waa ka fogaaday waxay ku saabsan tahay faaliyuhu dhibaatada dadka uu geysto wuxuu doonayay inaad ka tigin markasta jaanjaanis buu sii gelayaa qofkii laba nin baanu ahayn oo ninkan aktarkan jilaagan ciise oo lacag ka luntay uu ka bilaabmayay iyo aniga
faaliya aan maqlay baan u sheegayay faaliyahaas markii dambe anigu waan aaminay isna muu aaminin markii dambe ninkayga aaminay dhibaatada suuman kala marka sheekada magaceeda waxa la ninka aaminay faalku